كجدال مركان اسكو حريريني نظام إيمسكا Education Management Information System ee wasaaradda waxbarashada iyo kaarka aqoonsiga ee qaranka taasi waxay noo suurtagelisay runtii in badan inay naga yareyso qaladaadkii ku imaan jiray magaca ardayga magaca waalidkiisa tusaale ahaan hooyadiisa oo kale sidoo kale waxaa taa la mid ah macalinka naftirkiisa inay noqoto xogtiisa xog saxan oo isla markaana macalinku in magaciisa iyo daadiisa iyo goobta ku dhashay inta baynay noqdaan iyagana kuwa saxan waxaa intaas sii dheer systemka ama platformka ay soo saartay hay'adda diiwaangelinta ee qaranka inuu noo suurtageliyo runtii annaga inaan hubi karno qofku annagoo isticmaalayno tirsiga kaarkiisa aqoonsiga ugu qoran kadibna aan runtii meesha inooga soo baxdo qofka saxda uu yahay iyo magaca iyo daadiisa intaba ka hor nidaamka aqoonsiga qaranka waxaa laga yaabaa qofka inuu dukumiintiyo kala duwan haystay oo magacyo kala duwan leh marka dukumiintiyadiisa iyo ardayga xogihiisa marka hore uu qortay ay kala bedelan yihiin marka nidaamka aqoonsigu wuxuu meesha ka saaray dukumiintiyadii kala qaldanaa iyo magacyadii kala duwanaa iyo inuu qof kala ahaado marka wuxuu suurtageliyay inuu qofku yahay uu ahaado marka hore marka anaga lafteena taa waxay naga caawisay in ardayga oo ardaygii saxda ahaa ee anagu imtixaan ka soo qaadnay iyo magacyadiisa aan haynay uu noo yimaado kaarkii aqoonsiga qaranka oo magacyadiina ku qoran